5 caado oo habeenkii ah oo kaa caawin kara inaad yeelato subaxo wax soo saar sare leh. Caadooyinka habeenkii ee ciyaarta beddela. Dadka intooda badani waxay rabaan inay noqdaan kuwo wax soo saar leh oo nolosha ku guulaysta, laakiin qaar badan ma awoodaan inay sidaas noqdaan. Laakiin maxay tahay sababta? Waa maxay caadooyinka ay sameeyaan dadka guulaysta si ka duwan kuwa kale ee iyaga ka duwan kuwa kale? Inta badan waxaa la ogaaday in dadka ka guulaysta kuwa kale ay inta badan raacaan caadooyinka qaarkood diin ahaan, taas oo ka caawisa inay noqdaan kuwo abaabulan oo ka waxtar badan kuwa kale. Caadooyinkan fududna waxay inta badan bilaabaan habeen ka hor, taasoo ka caawisa inay si fiican ugu diyaar garoobaan maalinta xigta. Dhowr caado oo ula kac ah ayaa samayn kara faraqa oo dhan. Haddaba, halkan waxaan ku taxnay qaar ka mid ah caadooyinka habeenkii ee fudud ee xooga badan, kuwaas oo kaa caawin kara inaad soo toosto adigoo soo cusboonaaday, diiradda saaraya, oo gebi ahaanba diyaar u ah inaad yeelato subaxdaada. Qorshe berrito caawa. Ka hor intaadan seexan, qaado 1 daqiiqo si aad u qorshaysato maalinta xigta. Tan waxaa lagu samayn karaa siyaabo fudud, sida inaad qorto 3 mudnaantaada ugu sarreeya maalinta xigta, jadwalso hawlaha muhiimka ah, xulashada dharkaaga subaxda xigta, ama xitaa diyaarinta cuntada. Dhaqankan yar waxa uu yarayn karaa walbahaarka subaxda ee go'aaminta waxa la samaynayo, waxana uu maskaxdaada ku siinayaa tilmaamo cad oo ah waxa la samaynayo. Tani waxay ka hortagi kartaa daalka go'aanka, waxayna sidoo kale badbaadin kartaa waqti. Guud ahaan, waxaad bilaabi doontaa maalinta adigoo dareemaya xakamayn badan iyo falcelin yar, taas oo kor u qaadaysa wax soo saarkaaga isla markaaba. Ha isticmaalin taleefankaaga ama qalabka elektarooniga ah ugu yaraan 3 daqiiqo ka hor intaadan seexan. Ku dhex wareegida taleefankaaga ilaa ay indhahaagu gubanayaan maaha hab caafimaad leh oo lagu seexdo. Wakhti aad u badan oo shaashadda ah isla markaaba sariirta ka hor waxay ku khalkhalaysaa heerarka melatoninkaaga, waxayna adkaynaysaa inaad seexato. Waxay sii saamaynaysaa tayada hurdadaada, waxayna adkaynaysaa inaad kacdo adigoo dareemaya nafis subaxda xigta. Taa beddelkeeda, isku day inaad telefoonkaaga iska saarto ugu yaraan 6 daqiiqo ka hor intaadan seexan oo si fudud naso oo naso. Isticmaal wakhtigan si aad u akhrido buug, joornaal, ama fadhiiso oo kaliya. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad si qoto dheer u seexato oo aad leedahay maskax fiiqan subaxdii. Waqti tayo leh la qaado kuwa aad jeceshahay. Ha ahaato xaaskaaga, qoyskaaga, ama xayawaanka rabaayada ah, la qaadashada waqti tayo leh kuwa aad jeceshahay waxay ka caawisaa la dhisida xidhiidh caafimaad qaba. Lahaanshaha ilaaqaad wanaagsanna waxay saamaysaa tayada nolosha qofka. Dhaqankan fudud ee la xidhiidha dadka aad jeceshahay dhammaadka maalinta daalka waxay kaa caawin doontaa inaad niyad jabto, nasato, iyo xitaa kor u qaado farxadaada guud. Marka aad maskaxiyan nabdoon tahay, sidoo kale waxaad u janjeertaa inaad si fiican u seexato oo aad u soo toosto firfircooni. Ku celceli dhaqanka dabayl hoosaadka. Waxa kale oo aad niyad jabin kartaa kadib maalin dheer oo aad shaqada ku jirto, adiga oo abuuraya habdhaqan dejin oo jidhkaaga tilmaamaya in la gaadhay wakhtigii nasashada. Tan waxaa ka mid noqon kara iskala bax, fekerid, dhegaysi muusig deggan, ama xitaa cabista shaaha geedaha. Dhaqanka dabayl hoosaadka joogtada ah wuxuu caawiyaa dhimista walaaca, kor u qaadaya tayada hurdo ee wanaagsan, waxayna sahlaysaa inaad si dhaqso ah u seexato. Iyo sida wanaagsan ee aad u seexato, inta aad u feejigan tahay iyo wax soo saar badan ayaad noqon doontaa subaxda xigta. Asal ahaan, habeenno deggan, subaxyo xoog leh. Milyasiga iyo mahadnaqa joornaalka. Ka hor intaadan seexan, qaado daqiiqad si aad u hakiso oo uga fikirto maalintaada. Qor 1 ilaa 3 shay oo aad ku mahdinayso oo xusuusnow guulo yaryar oo maalintaada ah. Caadadan yar waxay kor u qaadi doontaa niyadaada, waxay yaraynaysaa diiqada, waxayna kaa caawin doontaa inaad ku seexato maskax nadiif ah. Waxay sidoo kale wanaajisaa diiradaada maalinta xigta. Uma baahnid joornaal qurxoon kaliya, dhowr sadar oo buug yaraha ku jira ayaa sixir u shaqayn kara waqti kadib.